السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي سليمان داود وحن جعل هذا إن إذن لو ذا وحديث وأنا أحسن إذن لو ذا وأن جعل هذا سيدا أوجد إلهي سبحانه وتعالى حوي دي سنينا بيش عن شعبان أو الوجر إلهي سبحانه وتعالى إنه عمل كينو كر وقاضه وإلهينا أخبره أن ويدي سنينا سيدا كل حوي دي سنينا سبحانه وتعالى بيش رمضان إنه إلهي عافمات نوجيه بش يبرواقه يا عافمات إلهي سبحانه وتعالى إنه جارسيه بيش رمضان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا sidoo kale qofka muraad rajayna ilaah muraadkiisa u sahlo intii xanuunsan ilaah caafimaad ha siiyo intii maaragta horumar ay ku talaastaan jecel ilaah subxaanahu wa tacaala horumarku ha gaarsiiyo intii murugaysanna ilaah subxaanahu wa tacaala murugada ha ka faydo maxaa nabi sal alla slam wuxuu leeyahay man nafasa can mu'minin kurba qofkii ka faydo qof mu'min ah kurbada ka faydo ilaah subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama ayuu kurbada qiyaama ka faydaya sidaa awgeed qofka ha isu gargaarno qofka dhibaataysan dhibaatada ka qaadna haddaan awoodi karno ilaah subxaanahu wa tacaala aniguna u baryayna inuu ilaah subxaanahu wa tacaala wax walba u sahlo haddaba xadiidkan wuxuu ka hadlayaa afar arrimood ayuu ka hadlayaa xadiidkan abi saciid al-khudri ayaa laga wariyey wuxuu yidhahay abi saciid al-khudri arbacun samictuhunna min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam facajabnanii wa aanaqnanii wuxuu yidhaahday afar arrimood aan nebiga sala allahu calayhi wasalam ka maqlay wayna ii cajib gelisay wayna ii wanaagsanaatay oo mid fiican ayay ii noqotay markaan afarta aan fiiriyey saxaabigii sidaasuu yidhaahday haddaba maxay tahay midda koowaad waa midta adiga ka hadlaysa hadda aad dumar aad tahay adiga ka hadlayso nebigu sal alla alay wasallam wuxuu yidhaahday allaa tusaafira imra'atun inaysan haweeney safri karin masiirata yowmayn meel loo soconayo laba maalin meel loo socda laysa macaha zawjuhaa ow duu maxram ayadoo ninkeeda aan la soconin iyo ayadoo maxram aan la soconin inay soconin meel laba maalmood loo socdo maanta waxaa arkaysaa meel la aadayo 3 maalmood 5 maalmood loo socdo in la aadayo ayadoo maaragtaa wax muxram ah aan la soconin ama wax zawj aan la soconin gabadhii kaleegeed iska socoto waxaana u badan arrintaas dumarka ganacsatada ah way soo adeeganayaan dadna ma wadanayaan muxram ma wadanayaan ma ahna de muqdisho kale ma ahna de inta hal maalin ku tagi kartaa laakiin wax ka fog laba maalin meel loo socdo wax ka sii fog haddii aad u dhaqaaqdo waxa u baahan tahay muxram iyo waxba u baahan tahay in zawjkaadii oo ku raaco sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu leeyahay mid saxaabada ka mid ah ay wuxuu damcay inuu aado jihaad inuu aado markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiraahday xaaskaagii ma joogtaa wuxuu yiraahday nabi sallallahu alayhi wasallam way xajinaysaa markaasuu wuxuu yiraahday bax oo xajka ayda raacay yiraahday jihaadkii ayaa laga reebay marka ilaah subxaanahu wa tacaala ana waafajiyo halka wanaagsan ilaahna waafajiyo ilaah subxaanahu wa tacaala gabdheena iyo dumarkeena ilaah hagaajiyo oo ha toosiyo taas waa midda koowaad in haweeney ay safri karin meel laba maalmood loo socda inaysan u safri karin ayadoo aan la soconin zawjkeeda iyo maaragtaa maxram ayadoo aan la soconin midda labaad waxay tahay walaa sawma yowma alfitri waaladxaa iyo inaan la soomaynin soonna ma jiro maalinta ciidulfitrka iyo maalinta ciiduladxa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa yowmu shaki ayaa la yidhaahdaa maalinta ayadana lama soomo arrinta afarta ah labo aan joognaa 3 walaa salaata bacda salaatayni salaadna ma jirto laba salaadood galaashooda salaad ilaah subxaanahu wa tacaala kaama aqbalaa ama maba jirtaba waa tee waaye bacda salaati alcasri salaada casharka kadib qabla taqrub ashamsi intaysan qoraxda soo bixin ka hor hasku dukun salaad ha dukun sunaba ha aatee wa bacda salaati الsubax qabla tudlac الshams iyo ma aragtaa salaada subax ka hor intaysan qoraxda soo bixin ayadana adukunin ilaa ay qoraxda ka soo baxdo sug ayaa la leeyahay arrinta afraad ayaduna waxay tahay walaa tashuddu rixaalu qofka inuu u diyaargaroobin safar u diyaargaroobin oo wax murug ah isaarin oo diyaargaroow uusan gelin ilaa ilaa 3 masaajid ilaa 3 masjid mooyaane hadda aad masaajid u safrayso ama aad aadayso waxaa lagu ogol yahay inaad 3 masaajid aad aado maaragtaa u safarto u diyaargarowdo kow waxaa la yidhaahday masjid alxaraam waa masjidka kacbada weeyaan laba waa masjidii iyo masjidka nebiga iyo wa masjid alaqsa iyo masjidka aqsa ee maanta yahuuda muslimiinta ku dhibaataynayso dhibaato walba u geysanayso maantan marka aad arkayso dhibaatada ka socoto marka ilaah subxaanahu wa tacaala uu baryeynaa alla subxaanahu wa tacaala inuu ka dulqaado muslimiinta dhibaatada ka dulqaado sidoo kalena cid walba muslim ah ilaah subxaanahu wa tacaala inuu u fududeeyo wax walba ay jeceshahay haddaba waxaan rajaynayaa afarta arrimood oo nebi sallallahu alayhi wasallam inuu sheegay saciid al-khudriin oo ka maqlay in aad fahanteen oo aad ka baxsateen
waxyaalo fiican oo wanaagsan adiga ku anfaca oo adaba idinka ka qaadatay waa asiga dhan inaad ku dhaqantaa laakiin wax badan waa ka fiican tahayo in badan xadiidka waa ka qaadatay laakiin in yar ayaa ka tagtay taasoo ah dumarka inay aad ugu badan yihiin inay u safraan ayagoo aanan muxram wadanin inay u badan yihiin sidoo kale salaada subax kadib in maaragta salaad lala yimaado casr kadib ida salaad lala yimaado taas ayaduna waa qalad diyaargarow safar marka aad galayso masaajid in aad rabtana saddexdaas masjid oo aan sheegnay aad diyaargarowsa haddaba shargaray khayrka iyo wanaagga cidii aad la jeceshahay gaarsii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.